garoonka diyaaradaha Muqdisho waxaa soo caga dhigtay diyaarad sidii taliyaha ciidamada Burundi ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika AMISOM. garoonka diyaaradaha Muqdisho waxaa soo dhaweyn ugu sameeyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Oduwa Yusuf Rage. wafdigan Uganda oo ah taliyaha ciidamada Burundi ayaa intaa kadib kulan xog wareysi la qaatay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka uu hogaaminayay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Oduwa Yusuf Rage. Uganda ayaa ujeedka socdaal uu soo gaaray Soomaaliya waxaa lagu sheegay sidii uu korgeli lahaa xaaladda ciidamada Burundi ee wadankiisa ka socda isla markaana ku sugan Soomaaliya. General Oduwa Yusuf Rage ayaa Uganda oo ah taliyaha ciidamada Burundi waxa uu kaga mahadceliyay doorka ciidamada wadankaasi ay ka ciyaarayaan sugidda ammaanka guud ee Soomaaliya iyadoo ciidamada Burundi qaybo kala duwan oo dalka ay ku sugan yihiin isla markaana al-shabaab ee dalka ka difaacaan. General Oduwa Yusuf Rage waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed haatan lagu wado dib u dhis xooggan oo ku aadan sidii ammaanka guud ee dalka ula wareegi lahaayeen sidii horeba madaxda qaranka ay u sheegeen. ciidamada Burundi oo qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika AMISOM wax ka badan 10 sano Soomaaliya jooga ayaa dhawaan la qorsheynaya in la soo gabagabeeyo isla markaana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si buuxda ula wareegaan ammaanka guud ee dalka. intaas kadib waxaa jiray kulan gaar ah oo dhaxmaray Uganda taliyaha ciidamada Burundi iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada Burundi kuwada ka howlgala Soomaaliya. kulankaasi oo ay kaga xog wareysteen xaaladda askarta Burundiyaanka ee ku sugan Soomaaliya sidoo kale baahiyaha gaarka ah ee xilligan qabaan. Uganda ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu soo hagaagayo xaaladda ammaan ee Soomaaliya isla markaana haatan uu ka duwan yahay sidii ay ahayd 10 sano ka hor isagoo u rajeeyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in ciidamada uu hogaamiyo ay dhawaan ku guuleysan doonaan xaqiijinta ammaanka guud ee dalka isla markaana laga maarmi doono AMISOM. siyaasiyiin badan oo Soomaaliya ayaa qaba haddii lacagaha ku baxaya ciidamada AMISOM loo wareejiyo dhinaca ciidamada Soomaalida ay si buuxda ula wareegi karayaan ammaanka guud ee dalka. safarkan soo degdegay ee taliyaha ciidamada Burundi ee Soomaaliya uu ku soo gaaray waxaa lagu sheegay kadib markii dhawaan al-shabaab weerar ay qaadeen ay ku dileen dhowr askari oo ka tirsanaa ciidamada Burundi. ciidamada Burundi ayaa hadda heegan buuxa ugu jira in aysan ku dhicin weer la mid ah kii al-shabaab ay ku laayeen askar fara badan oo Burundiyaan ah isla markaana ku howlgala magaca AMISOM. ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban. ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah. uga shuba ii dahab kood nambarka xidig 1 eber 1 4 gees.